tarabiik waxaan joogaa wadada laga shaqeynayo waana ereyada xaafadeena marka waxaan u rajeynayaa maamulka iyo howlahooda inay maamulka iyo dadku inay wanaagsan yihiin oo gudoomiyaal fiican in xaafadda ay heleen iyo maayarada magaalada aad baan u bogaadinaynaa hawsha ay noo hayaan iyo wadooyin ilaa inta aan jiray ilaa da'dayda xirnaa marka alxamdulilah wadooyinka waa naloo furaya marka gudoomiyaasha iyo maayarada iyo dadka dhan iyo dadka dhan waxaan leeyahay hambaliyo waa hadduu noo iftiinay baan leeyahay ujeedaan wadooyinkii nalaga askale maanta waxaan u qasomay insha Allah laba xaafadda hormar gudoomiyaha xaafadda hormar Mubarak ما شاء الله إلهي ما تسويه وضوئين ومهمة وهالبولة وحافظة والمرة يا مان كشغيل أو كسميني إن شاء الله وحوي بالعسوع اللي أنت تكمل قال كعجو لما مملكة الدولة دوس أو سري بقدر كمذا يو لما مملكة خوسي وعن كرجوين هنا نسوع اللي بالعدد كمذا هم مرة كشغيله وما سنجي قدوميها حافظة والمرة وانين ياد أو في عنو صاحب كيجاه وكشغينا يو بالعسوع اللي أنت المجال من ديجانك waxaan leeyahay dadka wadada sharci darada ama ka dhisay wadada soo galaya waxaan leeyahay dadka ka waantoobaan wadadaas wadada waxa waa halbowlaha oo ka dhaxayso mid ka dhaxaysa wadada oo aad maaysan marka waxaan kale waa u macilinaya laamaha amniga subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iskale marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhamaan laamaha amniga iyo dadweynaha reer hormar oo maanta nagala qayb qaatay oo baalkii loo jiray aan ku fureynay wadooyinka iyo dhamaan baalkii loo jiray jidadka xirnaa iyo kuwa kale oo baalkii loo jiray furnaa aan ku nuurinaynay runtii waxa iyaduna baalkii loo jiray doorkeeda qaatay oo nagala jooga hadda agaasimaha hawlaha guud oo ayaguna shaqo fiican nala qabtay shaqadan muhiimadda koobaad iyo awoodeeda iska lahaa aad iyo aad ayakana ugu mahad celinayaa runtii waxaan leeyahay dadweynaha reer hormar waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa ugu bogaadinayaa shaqada quruxda badneed maanta ay nagala qayb qaateen waxaan leeyahay markasta shaqadaas in aan joogteyn doono oo ay maanta ku ekaan doonin maanta aysan ka bilaaban doonin runtii waxaan kale oo aan rabaa inaan halkaan aan baaq uga soo jeediyo dhamaan dadweynaha ku nool xaafadda hormar in aysan wado si sharci darro ama aysan u dhisan ama aysan qashin iyo dhagax iyo jiinkadii aysan dhiganin runtii waxaan rabaa inaan hadalkayga aan ku soo koobo dhamaan laamaha ammaanka iyo dawladda hoose oo isku duuban waxay markasta u taagan yihiin soo celinta iyo qurxinta degmada Gaalkacyo waxaan rabaa in aan hadalkayga aan ku soo koobo shaqadii quruxda badneed oo maanta la qabtay waxa aad iyo aad aan uga mahad celinayaa agaasimaha hawlaha guud waa salaamantii dhamaan assalaamu calaykum